dhammaan waxaan salaamayaa walaalaha Soomaaliyeed meel walba joogaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadankan Koonfur Afrika meel walba joogaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu xifdiyo dhibaatadan iyo masaa'ibtan iyo qalalaasahan iyo boobkan iyo dhacan socdana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka badbaadiyo meel walba ay joogaan awlaadooda iyo reerahooda iyo guryahooda iyo maalkoodaba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu u xifdiyo oo uu u ilaaliyo intii la boobay ee ku hanti weyday dhibaatadan socota Ilaahay subxaanahu wa ta'aala badal khayr qaba Allah siiyo wax ka khayr badan Allah ugu bedelo inta aan la boobin hantidooda ilaa hadda u bad qabtana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka badbaadiyo hantidooda Allah ka badbaadiyo naftooda Allah ka badbaadiyo ehelkooda iyo caruurtooda cid walba oo wadankan joogta Allah ka badbaadiyo walaalayaal wadankan ayaamahan dambe xaalkiisu waa iska sii xumaanay siyaasad ahaan sad la socotaanba xaalkiisu ma deganayn haddana way ka sii darto waad u jeedaan marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa naga badbaadin kara Ilaahay xaqiisa inaan gacmaha u taagno oo xaqiisa aan u cararno oo Ilaahay aan barino waxa weeye Ilaahay un baa naga badbaadin kara marka meel walba joogtaan Ilaahay idinku xifdiyo meel walba joogtaan Ilaahay idinku xifdiyo waxa weeye waxa loo baahan yahay waqtigan oo kale dhibaatadu ay jirto in badan oo kamidana waan soo marnay waan aragnay wadankan dhacdooyinkiisa iyo dhibaatooyinkiisa waan la soo noolay dhibaatooyinkan oo kale marka ay dhacaan waad aragteeno dadkan yaacaya cid ka celinaysa ma leh marka insha Allah ta'ala in la iska warqabo dadku feejignaadaan hadda maanta saaka suuqyada magaalada Johannesburg waa xiran yihiin iyo meelaha kaleba waxa weeye ganacsiga oo dhan baa xiran marka in la feejignaado oo la iska warqabo oo la isu gurmado oo cidii alaab la soo rari karo la soo raro cidii la soo badbaadin karo ee meel ku go'doonsan la soo badbaadiyo la iska warqabo cidii soo qaylisa dhagtu ay taaganta xaqiisa loo cararo wixii laga soo badbaadin karay awoodeen ay tahay la soo badbaadiyo insha Allah ta'ala la iska warqabo xaaladdu marba meesha ay marayso in lala socdo oo dhagtu ay taagan tahay oo walaalaheena gaar ahaan locationada ku jira in aad looga warqabo insha Allah ta'ala waqtigan oo kale la isu baahan yahay aynu isu gurmano insha Allah ta'ala aynu iska warqabno ilaahayna aynu barino ilaahay baa inaga kor qaadi kara ilaahu naga kor qaad dibkoodana Allah naga badbaadi ilaahu subxaanahu wa ta'aala waxaan ka barinaa dibkooda Allah naga badbaadi ilaahay hala bariyo walaalayaalow hala isu gurmado hala is caawiyo ilaahay naga dulqaado dhamaantiin baa idin salaamaya assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh